dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay si rasmi ah digniin culus ugu dirtay shirkadaha shisheeye ee haysta ruqsadaha sahminta shidaalka iyadoo ku wargelisay in aan mar dambe la aqbali doonin dib u dhac dheer isla markaana si buuxda loo dhaqangelin doono siyaasadda cusub. Go'aankan cusub ayaa muujinaya isbedel dhab ah oo ka yimid habka ay dowladda federaalka Soomaaliya ku wajahayso kheyraadka dabiiciga ah gaar ahaan shidaalka iyo gaaska kuwaas oo muddo dheer ku jiray heer qorshe iyo heshiisyo aan weli noqon wax muuqda. Kadib doorashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2022 dowladda ayaa waxa ay dardar gelisay dadaalada lagu soo jiidanayo maalgashi shisheeye iyadoo heshiisyo ay la saxiixday shirkadaha shidaalka iyo sidoo kale gaaska halka sidoo kale ruqsado la siiyay shirkadda Liberty Petroleum Corporation. Si kastaba ha ahaatee shirkadahan ayaa lagu dhaliilay gaabis iyo waxqabad la'aan maadaama aysan fulin waajibaadkii aasaasiga ah sida sahano qodista ceel tijaabo ah iyo hirgelinta maalgashi muuqda. Inta badan waxa ay ku mashquuleen raadinta la hawlgalayaal iyo maalgelin cusub halkii ay si toos ah u bilaabi lahaayeen howlaha sahminta. Dowladda ayaa waxay hadda cadeysay in aan la aqbali doonin ruqsado fadhiid ah isla markaana la siin doono fursad shirkado kale oo diyaar u ah inay si dhab ah u maalgashadaan dalka. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in heshiisyada cusub lagu xiri doono shuruudo adag iyo waqtiyo cayiman oo lagu qiimeeyo waxqabadka. dhanka kale Soomaaliya ayaa tusaale u soo qaadatay heshiiskii la galay dowladda Turkiga sanadkii 2024 taas oo si degdeg ah u muujiyay horumar muuqda. Shirkad shidaal oo Turki ah ayaa durba fulisay sahano muhiim ah iyadoo la filayo in qodista shidaalka ay si rasmi ah u bilaabato sanadkan gudihiisa ee 2026. arrintaas oo sare u qaaday rajada laga qabo in dalka uu galo marxalad cusub oo xoosaar ah. wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Daahir Shire Maxamed ayaa xaqiijiyay in shirkadda Liberty Petroleum ay ka tanaasushay laba heshiis taas oo muujinaysa cadaadiska sii kordhaya ee dowladda ku hayso shirkadaha aan waxqabadka lahayn. wuxuu sidoo kale tilmaamay in shirkado kale laga sugayo in ay dhaqso u bilaabaan sahano cusub haddii kale ay wajihi doonaan tallaabooyin la mid ah. waxaa sidoo kale socda dib u eegis ballaaran oo lagu sameynayo dhammaan heshiisyada shidaalka iyadoo la qorsheynayo in la kansalo kuwa aan buuxin shuruudaha laguna bedelo shirkado leh awood farsamo iyo mid dhaqaale oo cad. dowladda ayaa sidoo kale xoojinaysa nidaamyada kormeerka si loo hubiyo hufnaan iyo isla xisaabtan loogana hortago musuqmaasuqa. arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli Soomaaliya ay wajahayso fursad iyo caqabad isku mar ah. khubaradu waxa ay ka digayaan in haddii aan si hufan loo maamulin kheyraadka shidaalka uu keeni karo musuqmaasuq iyo khilaafyo cusub, balse haddii si sax ah loo hago uu noqon karo laf-dhabarka kobaca dhaqaalaha iyo horumarka dalka. ugu dambeyn siyaasadda cusub ee fuli ama kaar waxay noqotay fariin cad oo loo diray shirkadaha mid lagu kala saarayo kuwa diyaar u ah maalgashi dhab ah iyo kuwa kaliya ruqsadaha u haystay dana aan muuqan.